السلام عليكم أصحابتي وايدين سلامي كسو دوادا يوتيوب channel كيغا فاطمة فني أصحابي محلها إن شاء الله برنامج كان شير قرايا سي والالب محلها لمانا بدن يفاميلا قوسس بدن إن أو بربري إن شاء الله بإذن الله يوقف إيدان إن وحنجعلنها إن شاء الله برنامج كان محلها قوسس بدن أو عصب ورسمي دونا إن شاء الله كفايدستان marka barnaamijkan waa quruxda waa farxada qoyska magaciisa horey aan kugu sheegay inaan barnaamijyo idin bilaawayo marka alxamdulillah maanta uu ii hirgalay inaan bilaawo maantana wallahi ma sha Allah jawiga isaaciday jawiga ma sha Allah maanta lagama sheekeyn karo jawigina waa jawi roob oo ma sha Allah lamaanaha ku fiican marka sidaas marka maanta waxaa go'aansaday inaan barnaamijkina maanta halkan ka soo daayo إن شاء الله بإذن الله هرتا إن قصص كصومالي ده بربر وين أيا كتاجن مركب بربر كاس محلها أنت بدن تذكر محلها سياسة أيكم مشغول سنين بدن السياسة ده على جهة لا إن ومهم هرتا قصص كمحلها بربر كود إن على جهة لا يصير يقول اسم الهاين يصير يفرحت كهيل الهاين ووحلو بهاي هاي سياسة ما أنت هرتا أو محلها هداك هذا النو تاس يعني وحبك ما قبل كرنو لكن وحك قبل كرت إنا كهذا شافي عن waxa wax ka qaban karin oo ka dheer in aad ku mashquusho waqtigaadana iskaga dhumiso kulli taas maxallaha yani ra'yigayga waa laga fiican yahay ani ra'yi ahaan qoysaska in laga hadlo dhismahooda iyo farxadooda iyo maxaan ku dhahay noloshooda si oo qoysas badan oo maxallaha oo dhismi oo burbursan ay u dhismaan si kugu cusubna maxallaha ayagana bardo ay u dhismaan oo ugu faa'iidaan insha Allah biidnillah muhiimada waa qoysaska insha Allah barnaamijkan xalqado badan ayuu leeyahay waa mid socon doona ma ahan mid yani hal maalin ku eg maanta xalqadii koowaad waaye oo noo hirgashay oo ma sha Allah jawigana ma sha Allah maanta uu caawiyay jawiga aad u macaan yahay roob waaye waa jawi lamaanaha ku fiican marka asxaabe insha Allah biidnillah waxaan rajeynayaa insha Allah inaa maxallahay barnaamijyadeeda aad ka heli doontaan aad maxallahay si fiican u taabici doontaan marka insha Allah barnaamijka horta waxaan rabaa inaan saddex qodob aan ku soo qaato saddexdaas qodob oo kala ah farxadda qoyska sidee ku heli karaan saddex qodob oo inaan ku soo qaato saddexdaas qodob waxay kala yihiin maxallahay sabarka waa muhiim maxallahay ixtiraamka iyo kala dambeynta intaba waxaan lahay waa loo baahan yahay marka intaas ba haday jirin qoyska qasab waaye maxaa lahay yani tiirarkiisa waa haday intaas jirin marka qoyskas yani asaga maxaa lahay burburu yani uu qatar u yahay marka insha Allah biidnillah saddexdaas rajaynaya inaa idin kala maxaa lahay idin kala sheego horta sabarka maxallahay number 1 horta sabarka waa wax loo baahan yahay inkastoo anaga sabarkana lagu soo barbaarinin oo marka weynaana maxallahay sabar lagu leeyahay hadiiba sabarkii maxallaha qofka horta lagu soo barbaarinin way adag tahay maxallahay suu ku sabro hadana laakiin waa qasab nafsadaada inaad sabarka barto marka waa muhiim horta sabarka hadaa maanta aan idin sheego sabarka waxa waaye qoftaada ama qofkaada labada qofba horta waa inay isku sabraan wiilka gabadhu qaban maxallahay waa inuu u sabro haday xanuunsato haday maxallahay nafsiyadeeda ay isbedesho waxyaalo badan haday la soo dirisaan oo dabeecad uu ku kasay ee iska bedesho wuxuu ku qasban yahay inuu u sabro sida marxaladaas ay ugu baxdo ugu gudubto gabadhana ayadana sidoo kale waa in maxallahay wiilka qaba ee u sabartaa hadii maxallahay nafsiyadiisa tacbaan tahay ama maxallahay oo baaga muddo yahay ama barbaleeno kale ee iska heestaan dabeecad ay shalay ay ku kasaysi iska bedelay waa inay u sabartaa fiican oo ilaa marxaladaas uu ka gudbaayo marka qoyskaas haduu sabro waqti badan ayuu dhisnaanaya uu jiraaya mid labaadna ixtiraamku waa muhiim labada qof inay is ixtiraamaan oo waxaan ku dhahay maxallahay farxadda qoyska waaye mid kamid ah ixtiraamkaas oo maxallahay qofka markuu oo banaanka ka imaado kaleeto waa inaa waji furan iyo waxaan ku dhahay hadal fiican aad ku soo dhaweysaa ma ahan inaad danahaada iska raacataayo maxallahay inuu qof imaaday in kaleba aad ka soo qaadin hadii aad qofkaas aad danahaada iska raacato shib aad ka dhahdo inuu soo galay in kale aad kula ogeyn yani ixtiraam la'aan waaye ama waxa laga
yaabaa qofkii inuu jiifo kaleeto adiga aad soo jeedid telefoon maxaa dhahay aad cod dheer iskaga hadlaysid ama maxaa dhahay telefoon aad cod dheer iskaga hadlaysid ama TV inta shidato codku uu ku dheer yahay oo iska baashaalaysid oo qofkii jiifa ay ixtiraamaynin intaas ayadana maxaa dhahay uma fiicna qoysaska ixtiraam la'aan waaye marka labada qofba maxaa dhahay inay is ixtiraamaan fiican ay kala dambeeyaan kala dambeynta soo hartay number 1 kala dambeynta horta waa muhiim labada qof oo maxaa dhahay oo nolosha maxaa dhahay shirkada ku ah inay kala dambeeyaan waa muhiim marka maxaa dhahay carabtu waxay dhahaan shariik xayaa yani shariik xayaa marka qofka kula nool oo noloshaada shirka kugula waaye labada qofna markay shirka yihiin hal qof go'aan ma qaadan karo oo hal qof kaligiisa maxaa dhahay go'aan ma gaari karo waa inuu qofkii shirkada la ahaa uu maxaa dhahay uu la sheergareeyaa uu u sheegaa waxa saas ah si maxaa dhahay labada qof ee markaas ay go'aan ugu qaataan marka kala dambeyntu waa muhiim in qofku iska baxo ama iska wareega ama danihiisa uu iska raacdo oo nafta kaleeto ku xiran oo maxaa dhahay waxba u sheegin marka taas ma fiicno marka insha Allah biidnillah asxaabay waxaan rajaynayaa ina barnaamijkan aad wax badan ka faa'iidi doontaan farxadda qoysku waa muhiim labada qof inay kala dambeeyaan is ixtiraamaan ay sabraan saddex laga maarmo ma ahan waa loo baahan yahay insha Allah biidnillah ilaahay waxa idinkaga tuugaya in qoysas badan oo farxad leh inuu ilaahay idinka dhigo inuu ilaahay idin barakeeyo insha Allah asxaabta kaleeto ayagana maxaa dhahay barnaamijyada oo qoysaska ayagana soo deeyso waxaan leeyahay ilaahay garabkiina ha galo ilaahay maxaa dhahay adinkana ajir ha idinka siiyo maanta waxa ajirka laga helayo waa farxadda qoysaska